kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ayaan oolin kalluun fara badan waxaana laga dareemayaa kalluun yari iyadoo ganacsatada kalluunka iyo dadka iibsada kalluunka ay ku sheegayaan kalluun yarida ka jirta iyo sare u kaca qiimaha kalluunka ku yimid halkan waa kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir halkaasi oo lagu iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan waxaana looga yimaadaa si looga iibsado kalluunka degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la kala iibsado kalluunka taasi oo sabab u ah dabaylo ka kacay badda gudaheeda oo aan awoodin doomaha kalluumaysatada in si fudud ay ugu soo jalaabtaan kalluunka xeebaha Soomaaliya oo ay kala kulmaan caqabado dhinaca kalluumaysatada doomanka iskaashatada kalluumaysatada ayaa sheegay in xilliyada dabayluhu ay ka kacaan iyo cadada bisha marka la gaaro ay kala kulmaan jalaabashada kalluunka dhibaatooyin aad u fara badan waxayna tilmaameen in mararka qaar ay doomanku rogmadaan dabaylaha xoogan iyo muujadaha ku dhufta doomanka kalluumaysatada isla markaana aysan awoodin in meelihii horey ay ugu soo jalaaban jireen ay gaaraan kalluunka ayaa waxaa laga isticmaalaa dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho waxaana sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka uu yahay mid aad u baasan sida ay sheegeen qaar ka mid ah kalluumaysatada halkii xilliyadii hore qiimaha kalluunka uu ahaa $5 ayaa hadda waxa uu ka joogaa $30 Mareykanka taasoo saameyn ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed ee iibsata kalluunka iyo ganacsatadaba qaar ka mid ah kalluumaysatada ka ganacsada kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka iyo waxa sababay adal miraare warshiiq iyo waxa laga keenaa jasiiro iyo dhulahaas la diga amal waxay ka cabsay markii doominka laga doonto iyo malaweyn oo soo uraa kaas libaaxaas sidaas libaax weyn oo qurac karo kaasay ka cabsay iyo dabash badan badi ma aadaan doomin wax yar leeyahay magacayga waxa la raadaa Sala Jimcaale malayn waa eber dabeelo badan ay jiraan lagu leeyahay meesha waa malay la'aan si fiican marka saasaan ugu yimid meeshan hadda malay waa qaalisii zaid raqiis oo ahay marka maxaa isleedahay malaygana ku raqiiso faa'iidada malayga dad bulshada u leeyahay faa'iido fiican oo leeyahay aniga tan kiimaada degmada Daynilan kiimaada Ahmed Muumiyi karo kawaanka malay Xamarweyne aan joognaa xilliga hore malay waxaan ka diray $2 kana $5 maanta $6 dabashino oo jeedin waxa walbana waa nin muuqdaan dhiin oo markabkan waa kan biyaha oo kadaadinooy markabadu waa kacsan tahay labadan bari shacbigu xarma dulqad kana wax la geeyay $6 maanta $10 lagu rabaa marka waa kaasa kawaanka Xamarweyne malayga waa kan ilaa hadda si sax wax u dhiiwasa wallahi dabashas maan wax kala ma batay motorkii baa marna qaarna waa dhuma qaarna waa baba qaarna waa soo noqon hadda hal bilood motor oo naga maqan soo noolay ilaa noo sal siryan gal laga helay daradna waa nool keen ragiis marka alxamdulillah waxna waa maqan waa suugana waa kan malayga naga soo ilaa warshiiqi cilmi caawa marka waa kaasaan naga maraysaa meesha malay qaba karo ma jirtaa oo inta baxay wax ku naqday qaar oo la ciyaar naagooda ilmo joogan oo anaga wax ka siino qaarna waa la keenay bal alxamdulillah ilaahay noo soo saar siryan kala yeel maalmahan dabaysha tan ay socoto doomana ku naqday ma jiraan dabaylaha hadda now motor hadda oo la soo jiidaa jira oo baayar laga soo helay oo habeen hore le baashaas ku dhacday hadda alxamdulillah hadda motorada badan ama baxooyin ilaahay tan ay ku ogaadaan kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ayaan oolin kalluun fara badan waxaana laga dareemayaa kalluun yari iyadoo ganacsatada kalluunka iyo dadka iibsada kalluunka ay ku sheegayaan kalluun yarida ka jirta iyo sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka xilliyadan oo kale marka ay kacaan dabaylaha ayaa waxa yaraada wax soo saarka badda taasi oo saameyn ku yeelata kalluumaysatada iyo ganacsatada iyo dadka ka macaasha kalluunka Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho